isaaq bay baratay tan waa lagu baaba'ayaa wala la iska celinayaa gooja cadaan ku tukanayna gooja cade ma jidha baa lagu yiraahdaa iyaga ma jidhaan idin gooja cade bay ku celiyaan gooja cade deer ma joogo bal soo gal tayr gaadha isaaq yaa ku hadhay maanta samaroon baa ku hadhay isaaq muxuu u haystaa samaroon isaaq samaroon wuxuu haystaa hanti uu leeyahay بربرتي وياي بوها كان هير waxay marayaan markay reesha qiscaaq kala guri kari waayeen misana ay ku daaleen kala gurikooda iyo kala jafitaankooda ayaa waxa ay maanta ay talo ay ugu soo cadaatay in ay caayaan beesha Samaroon ee sharafta leh iyo beesha Ciise ee sharafta leh misana ay ku tilmaamaan in ay yihiin adoon ay adoonsanayaan isaaq annagu horta oran bayno ruux bini'aadan oo nolol mid ah waa noo adoon balse ninkani fikirka waa aaminsan yahay ayaa sidaas ah sababtoo ah isaga ayaa malaha awgi la adoonsan jiray qofku markuu fikrada noocaas oo kale aamino waa qof isaga ilaa yaraantii ambabase isirkiisa la soo gumaysan jiray qofku markuu gumaysigu ku noolaa ayaa uu dad kale u haystaa inuu sidiisoo kale ay ku nool yihiin waayahay haddaba beesha sharafta leh Samaroon maxay kala leedahay iyadu arrinka noocaas ah oo ninkani ku tilmaamayo annagoo danu Samaroon nahay dawladda Soomaaliland askariga nagaga jira shacabka Soomaaliland ee Samaroon intuba taageero dawladda Soomaaliland bay la garab joogsanayaan sidoo kale beesha Ciise gabdhahooda ayaa si sharaf leh kugu jawaabaye waa gacari oo kula googoosanaaye waa kale is dhageyso ma ugu soo qabtay wiilashii niyo boolis ahaa haye markaasad anaga waxa la dagaalka waa ka wada maqana waa ku wada jirtaan iska celiya Muuse Biixi waxma Samaroon iyo Ciise iyo ha ku marmarsiyoona saaka dagaalka waa ku wada jirtaan iska celiya Muuse Biixi Muuse waa kaligiis wallahi baan qof kale oo diray la socday ciidan uu tababartay ma ahan heblahoodina heer waxay marayaan ay halkani ay ka gaadhay oo ay leeyihiin ragga dhageyso lanteena waxa weeye in gabdhaha dhulbaanta waxay shukaansadaan markuu ku yiraaday door baa inaad ceerisid kuwa la qabanay iska furaan fadarada ehelna maaha isirna maaha sinjina malaha faracna malaha qurunka dhala wax la guursadana maaha iska furo iska ceeriyo meeshaad ku aragtiin indhaha ka candhuufa naawkaadi walaal annagu kuwa naqaanaba xataa haddaan gabadh qurux badan ahaan lahayd waxba ahaan lahayd waxba ku oran lahayd laakiin nooca marka tahay annagu xataa waraabadu ayada kugu cunay kaamaana soo xaraynay wallaahi billaah balse waxaad ka xaraaqday ee rubada ku jiray waa muuqaal ay gabadh reer Muqdishaahi soo duubtay oo wiil reer Muqdishaahi uu su'aashani weydiinayay rag isaaq iyo rag daraawiish yaa ka guursaleed mid guursadilo ay isaaqa ka guursalahay horta gabadh ay kooran maayo waad hilmaamsantahay amba bas ma ogsoonid balse waad dafirsantahay oo waxaad dafirsantahay oo aad ogtahay welibana inay ragga reer Sheekh Isaaq ay la dhasheen gabdhaha marka sharaf karaamo dadnimo wanaag qurux la soo hadal qaado lagu soo hal qabsado marka nin isaaqa isagoo gabdhaha noocaas la dhasheen waxa adiga ka soo raadinayaan waa garano gabadhay mid baa ku sheegay Soomaalidu faarta waa shaqadooda bari ka maalin adoo nin isaaqa koosana walaal waa inta soo la arkay oo heedhan lagu soo qabtaaye inaad irgacayso bal hadalka wax ulaahay baa ku oran lahaa wallaahi billahi tallaah intaad gabdha kale u tilmaamayso gabdhaha kale u tilmaamaysaa ee leedahay iska fura kuwa wadin qabo kuwa gabdhaha daarada leedahay fura kuwa isaaqayda qaba haddii ka doqosay way furi balse inay ka fariisayeen bay ku sheegayaano tanaaba kan bida ee bal dhageyso maxaa tiri naaska ayri ninka idoo أتان عيرينا ما نبغي يسوونه waayahay magaaladii laascaanood ahayd waxay isku bedeshay laas khamri sidoo kalena waxay noqotay goob lagu tumanayo misana dadkii iyagu hiilka iyo waxyaabo noocaas sheeganayay inuu yimaadeen waxa cadaatay inay hagardaamo ay ku wadaan isla bulshada reer laascaanood taliyaal cambaashe ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray 5 saacadood ka hor war-saxaafadeedkaasi oo san muuqaal ahayn balse qoraal ahaa ayaa wuxuu dhignaa maadaama maanta ay bulshada reer laascaanood ay dareemeen dibka u diidayeen ciidanka reer Soomaaliland balse dibkaasi weli ay ku sii indaadag yihiin haddana mahad cambaasho wuxuu sheegay in uusan marnaba aysan u ogolaanaynin in dadkiisi iyo deegaankiisi
reero iyo beeladiintay soo galeen ay noocay doonaan ay ku dhex samaynayaan tallaabo degdegana inuu ka qaadi doono ayuu war-saxaafadeedkiisa ku sheegay mahad cabaashe sidoo kale war-saxaafad ka soo baxay madaxtooyada xafiiska madaxtooyada ayaa musabix wuxuu ku sheegay in xuduudaha somaliland aan loo daba fadhiisan doonin misena aysan ka yeeli doonin ciddu doona ahaadee in xuduudo beeleed laga sameeyo sida hadda la socono lagu wado sidoo kale madaxweyne musabixi ayaa wuxuu sheegay in haddii lacala ay ka baxaan puntland oo soo gashay oo iyadu ciidamo beelada meeshaasi kusoo horgufaysa sida beriyii ugu dambeeyayba midhiyahaad kala wada socoteen kusoo horgufaysa isla sacano in haddii ay ciidamadaasi ay dib uga baxaan in iyaguna ay xoogaa kasoo degayaan barta ay maanta joogaan ciidanka somaliland balse si kasta ay haato ayna marnaba ka baxaynin balse mar kastaba ay xaaladda kor kala soconayaan misane ay kor ka maamulayaan waayahay sidoo kale xalay toole ayaa waxaa lagu dilay ninka ganacsada shidaalkaasi oo awal hore baad ay kaga qaadi jireen dhowr marna uu ogolaaday ugu dambeyna markii dambe uu ka diiday isla ninkaasi isagu maanta isla ninkaasi lagu dilay laascaanood alla naxariista jannaa ka waraabiye heer waxaa la gaadhay markaa lagu dilo isla xoolihiisii oo la idhahdo xoog ku keen awalba waad keeni jirtay laakiinse isagu marka hore si sharaf loo siiyey wuu ogolaaday wixii ka dambeeyna waxay isku dayeen inay xoog kaga qaadaan balse waa uu diiday markuu diidayna dil ayaa halkaasi ka dhacay alla naxariista jannaa ka waraabiyaa leenahay raggana intay fayaamaan ayay qaarna tiktok live soo galaan sida kan oo kale xagga qaar kalena iyagu markay fayaamaan dadka ganacsatada ka ahaa magaalada ay ku foofaan misane ay xoolahooda ay kasoo dhacaan sida ninkaasiba ay ku dileen shidaalka maadaama mar 2 iyo 3 horeba oo jeero hore uu ugu shubay isla shidaal misana una lacag ka qaadin balse markii ugu dambeysay gacantooda ayuu sababsaday ilaahay naxariis jannaa ka waraabiya leenahay waayahay bulshada haddaba maanta reer ascaanood inay dadkaasi iska dhex saaraan gooni u wada hadlaan kadib aayahooda ay ka wada tashtaan aniga ka fikir ahaantaas ayaan qabaa misana ay aayahooda bal wixii fikirkooda markaa usoo baxa ay bulshada ay ka tirsan yihiin reer somaliland iyo dowladda reer somaliland ka tirsan yihiin dhulkooda ka tirsayay ee ilaahay da wuxuu ugu daray inay la hor imaadaan halkaasi lagu garfeeyo wixii ay go'aanayaanna ay sheegtaan waxay garu leeyeen la siiyo waxay ku gardarayeen ado ka garaaba waxay ku qadantay dowladuna ay tidaado iyaduna ay ka garaabto ayaa rajeynaya balse haddii ay taasi dhici weydo waxay noqonaysaa in san la iskula meeraysto meeshuna ay noqoto meel beeled xuduud ah ambaba se meeshana ay noqoto meel ay khawaariij iyo waxyaabo kale meeshan ka dhex dilaacaan imika way ku yar yihiin imikada laftigeeda kama dhex maqna magaalada laascaanood way ku yar yihiin balse laakiin waxay noqon doontaa hadday san xaaladda kusii socoto 6 bilood oo kale waxay noqon doontaa meeshaasi hadalkaa meel ku qorta goob ay khawaariij fara badani ay ku kulmaan oo ay halkaasi ku kala shidaal qaataan misana halkaasi dagaal ba'ani mar waliba uu ka dhaco marka waxay odhan lahaa bulshada reer ascaanood aayihiina idinka ay gacantiina ku jiraan haddaad burburinaysaan iyo haddaad taaganaysaanba waa wax idinka idin yaala dabcan si kasta yaataba aad ugu maasida oo shan noqoto dhamaantii waxay istiga salaam alaykum waraxmatullahi wabarakatuh muuqaalkani muuqaalka